وعكلوا مهمين أوجانه ضلكم ماشوا مرهاي يا حالة وضعه وكسوجن يا وضع وحالة عكران أو عدقوي ومدان عذر كان يكون إحباهي colaadina waxa weeyaan saasaankeedu uu muuqdo waa laba khatar oo waaweyn caafimaad darro iyo amni darro haday bulshada iskugu daranto waa dabargo waa in ilaahay la baryaa oo ilaahay aan barinaa ilaahay aan tuugnaa dalkeena ilaahay amni inuu nooga dhigo aqli kale celinaya ma yaalo haday gaala amar ka qaadan jireen xaalna u fadhidana ayadii baa isku fiirsanayso waa baabaaga aan dan ka lahayn dad aan dareemahayn oo eegahayn hooyada dhimanaysa hooyada umushaah dhiig baxaysa miskiinka xamaaranayo tuugsan jiray oo saaka magaaladu ay ka xirantay masaakiintii masaajidkan soo dhooban jirtay maanta ma joogto hal yar laba ka joogo meel ay soo maraan male maxaa u dana ninka guriga ku go'doonsan oo miskiinka ah kii quutul yoomka maalinka raadin jiray oo dawlad iyo maamul wuxuu yahay waxba aan ka ogeyn ee habeenkii xogaagiisa yarka ilmaha oo la hooyana hayay hadii jiradkii ka go'aan hadii qax uu ku yimaado ya u dana kuwa dhiig baxayo hadii la xabadeeyo madaafiic lagu rido dhiigoodu qubanayo isbitaal la qaabili kara iyo wax dawlad garab taagan iyo wax u maciinaya aan la arag aqligii shaqayn lahaa oo bulshadaas dardarada ku kortay ku barbaartay oo dhibaatada inta la daala dhacaysay aqligii shaqayn lahaa oo tanaasuli lahaa nimanka ishirtinahaya kuma harin kabana muuqdo annaga mas'uuliyad baa ina saaran ina nafteenu ay badbaado ilaahayna aan ka baqno sababna aan u noqon qof muslim ah dhiigiisa oo dhulka ku dhibca midka xabada ridaya waxa uu dila amaam Allah amar baa la isiiye uga badbaadi maayo midka sabab u noqonaya bulshada inay baabacdo oo halaagsanto asaguna ku badbaadi oo mahayo dadka bulshada ah in badan baan soo aragnay in dadka madaxda ah oo siyaasadda ku hirdamaya ilmahooda ay seefgarayaan marka hore xaasaskooda dibadaha ay geystaan ayaguna guriyo shub ah oo qasriyaal ay hoos galaan markay dariiqa marayaan gawaari qafilan oo xabadu aynan kirin ay ku maraan markay isku bas beesho isku baabacdana intay duulaan ay shir u fariistaan xalane ama Nairobi ama Kenya ama meel kale oo dana dadle ay ka leeyihiin oga yeeraan halkaas intuu fariisto oo ka soo hadlo guriyuhu markay baaba'aan oo dadku ay qaxaan wixii soo harayna uu rabo inuu dhiigooda xukunka ku helo waa waxaynu soo aragnay oo goobjoog u ahayn weey ninka maanta lacag ku bixinayo maanta ganacsadaha ah ma jiro hal ma jiro qabiil buu ku bixiyay meesha ku dambeeyeen buu arkay ninka maanta ku taageeraya xaflado iyo shirar inuu u qabto oo lacag ku bixiya ma jiro laakiin hadda waa lagala wareegay Soomaali dhaqaale in anagu bixinaa hay-adaha ku bixinaya mid kasto mucaarada waxba la siin midka mu'ayidka waxba la siin mid walba waa la taabagelin waa la isku wadin aqligoodu isku keeni maayeen geed hoostiis fariistaan oo heshiiyaan inay isku tanaasulaan inay ku soo celiyaan odayaal cuqaala ay yiraahdaan go'aan ka soo gaara inay culimo u celiyaan kuma keenahayo mid walibana wuxuu leeyahay markuu daliishanayo dastuurka ayaa meel looga dhacay dastuurku agtooda wuxuu ka yahay muqaddas tafaasiir badan buuna leeyahay oo nin walba dastuurka qiil baa ugu qoran uu sheegto laakiin kitaabka ilaahay baa meel looga dhacay maqlimaysi kitaabka ilaahay baa wax ku xukumaya maqlimaysi waxaad maqlaysaa dastuurka meel looga dhacay weey inuu ku meel mar ayuu rabaa ha taageerin midnaba ha taageerin cidna cod ha siinin xilliga fitnada afkaaga xiro sida koroonaha afkaaga uga duubatay siyaasadda taagan oo qori ku taaga ah adiga inaad nabad gashid baa rabtaa qabriga marka lagu dhigo caydiid iyo faarax iyo jumcaale waxba ku tari mahayaan god baad gelaysaa afkaaga xiro oo ka xiro cid kasta ayada danteeda wadata xukun baana lagu diriirsan yahay masaalix umadeed laguma maqna ilmana uma joogaan
qasriyana way ku jiraan kuwa jiingadaha ku jira kuwa dariiqay daadsan kuwa baahan ayagu ka mid ma aha biilku bari cuni lahaa iyo bisha soo socota ka fakari mahayo meel buu u yaallaa waxa uu rabana dhiiggaaga inuu xukun ku helo weeye xabaddana aduu iskaga kaa dhigayaa hebel hadduu yahay qof now waxa weeyaan ha ku naar tegin aakhiradaada ilaasho waxaa naga quseeyo ku celcelinaynaa inaan nilana xasbuna allahu wa nicma alwakiil حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ملك استو الصومالي أي جوجت أو مسلمين تا أي جوجت كوي دبدنا نجت شري أو صلى الله عليه لها رجحوا ما كنا عليه رجحوا ما أموقت المهودي أو ضيع مي أو أي ربين إنه كانان ما أنت رجحوا ما أموقت كوا مجالات إيمان لها أو كل الدول أو نوعية كل الدول أها رجحوا ما أموقت كوي مال قسن لها رجحوا ما أموقت kuwii gudaha joogay rajaxuma u muuqata 24 saac hadalladaas la isku marinayo baraha bulshada oo colaad iyo fitno u sii horinaya ha laga gaabsado aad iyo aadna looga taxadaro ilaahayna subhanahu wa ta'ala u weydiiya hadii hanuun ilaahay la maagay qulubtooda ilaahay hanuun ku hadaan ilaahay hanuun la maagin allahumma kfina sharrahum balana dhammaantood shartooda allah naga kaafi allahumma rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه